midowga Yurub wuxuu dhimayaa lacagta uu ku taageeri jiray ciidamada Kenya ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo qayb ka ah ciidamada AMISOM ee howlaha nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka Soomaaliya. midowga Yurub wuxuu sanad walba malaayiin dollar siiyaa ciidamada Kenya ee ku sugan koonfurta Soomaaliya kuwaas oo sanada ka hor yimi halkaas. in ka badan 60% ay qorsheeyeen in laga jaro lacagaha ciidamada Kenya iyadoo ay dhaqan gali doonto bisha July marka la gaaro. waa doon lacageed oo lagu qiyaasay 45 milyan oo dollarka Mareykanka ah. midowga Yurub wuxuu arrintan sabab uga dhigayaa maadaama ay soo dhawaatay muddada loo asteeyay in ciidamadani ay ka baxaan gudaha Soomaaliya sida darteed la yareynayo lacagaha la siin jiray. sanadkii 2011 ay ciidamada dalka Kenya gudaha u galeen Soomaaliya iyagoo aan markaas wax fasax ah ka haysan qaybna ka ahayn howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. Kenya waxay markaas ku andaconaysay inay la dagaalamayso kooxda Al-Shabaab oo haysatay badi deegaanada koonfurta Soomaaliya oo magaalada xeebta ku taala ee Kismaayo ay ka mid tahay. Al-Shabaab waxay sidoo kale weeraro ka geysan jireen gudaha dalka Kenya. muddo ay halkaas ka howlgalayeen ciidamada Kenya kadib waxay si rasmi ah uga mid noqdeen ciidamada AMISOM iyadoo midowga Afrika uu fasax u siiyay inay qayb ka noqdaan howlgalkooda Soomaaliya. Soomaaliya waxa ku sugan in ka badan 20,000 oo ciidamo ajaanib ah kuwaas oo ka kala yimid dawladaha Djibouti, Ethiopia, Kenya, Uganda, Burundi, Sierra Leone, Ghana, Zambia iyo Nigeria. waxay Soomaaliya u joogaan howlo xasilin ah iyagoo isugu jira wadamo military keenay iyo qaar boolis keenayba. si ka madax banaan Soomaaliya waxa ku sugan ciidamo ka yimi wadamada reer galbeedka oo Mareykanka iyo Ingiriisku ay ka mid yihiin kuwaas oo tababaro iyo taageero siiya ciidamada Soomaaliya. Khadar Haybasaab TV Hargeysa. hadda waan jimicsadaa caafimaadka charger maaysa حاجو تيار السكول كي ما تقيسي هاي شارجر مايسا شارجر مايسا شارجر عزومت دي بنشوفها عزومت دي سوق الو شارجر مايسا ونيوم maxaa ka qaldan maanta oo dhan telefoon baad ku hadlaysaa chargerna waad na weydiinaysaa aniga hayla yaabina waxaan isticmaalaa adeega Muraad ee shirkadda Somtel oo bishii oo dhan aan ku hadlo $3 oo kaliya. waxaad isticmaali kartaa adeega Muraad ee Somtel oo aad ku heli karto bisha oo dhan $3 oo kaliya. hadal oo hadaalin